بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لها صوماليدا meel kasto aad naga daawanaysaan waan idin salaamayaa waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan habeen wanaagsan subaxnimo wanaagsan barqanimo wanaagsan xilli walbo idin tahay wanaagsan magacaygu waa Ismaaciil Xasan Arax haddaba maantay ama caawa sidaan idinku sheegnay xilli walbo idin tahay waxaan idin sheegaynaa sidaad ku aragteen qoraalka kore ee aad ku akhrisay shan qodob oo noloshaada idil wax badan ka bedelayso waxaan ognahay qof walba oo bini aadan adduunka sidiisuba waa problem adduunka dhan waa problem laakiin problem walba xal buu leeyahay waxaan idin hayaa afar qodob oo wax walbood ku doonaysid noloshaada ka kaafinayso haddaba ayraahday shanta qodob maxay yihiin ma doonaysaa in Allah bismillah ku bilaabo qodobka ugu horeeya si fiican u dhageyso qalina soo qaada ama kor haddii xusuustaada ay fiican tahay ama waxaan ku bilaabaynaa qodobka ugu horeeya ma doonaysaa in Allah subhanahu wa ta'ala farad ku furo caqabado badan ma wajahaysaa ma ku haystaan dhibaatooyin fara badan shaqo la'aan ma ku haysataa xanuun ma ku haystaa xaalado fara badan ma kuga cakiran yihiin talooyin badan ma isdul saaran yihiin haddaba talada ayaan ku siinayaa oo simple very simple taladan waxay tahay haddii intaasoo problem ku haysto istighfaarta badi markasto carabkaada magaca ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku dikriyo qalbiga nabi maxamed alayhi salaam wuxuu sheegay camalka ugu wanaagsan ee qofka bini'aadanka uu sameeyo waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba uu xasuusto waxaan ognahay cibaadado idilbo definitionkeeda rasmiga ah waa xasuus in Allah subxaanahu wa tacaala la xasuusto salaada soonka ayada dhan waa xasuus Allah la xasuusanayo ko problemkaada dhan waxa lismaaya Allah subxaanahu wa tacaala xasuusno meel kastoo joogtid istighfaarta badi dunuubtaada maxaa la yiri ilaahay ka bari inuu ku dhaafo haddaba qodobka labaad maxay tahay ma doonaysaa inaad liibaanta adduunka aakhiro annaga dhan waxaan ognahay qof walba wuxuu rabaa liibaan adduunkana successful inuu ku noqdo aakhirana sidoo kale haddaba si fudud baan kugu sheegayaa uma baahnid inaad tagtid maxaa la yiri school aad dhamaysid uma baahnid inaad jaamacad dhamaysid uma baahnid xataa inaad dhaqaale fara badan haysatid mararka qaar qof wax walba haysto haddana way ka maqan tahay liibaantu ma aha dhaqaalo liibaanta waa in salaada aad tukatid waqtigeeda aad ku tukatid صاروا كلا وقت أركي كتاب مركز صلاة تكتيد أو جماعة كسو تكتيد وقت كذا كنت كتير فرحة دريميسد هي مركز جورجات كنت كتيد دي قف كان بتوكن مو يجري الليسك هذا باللي بان الدنيا مد آخره ويكون جرتها صلاة الله سبحانه وتعالى أنا وقت كذا كنت كنا صوته صلاة هو مسج كأبوين إله سبحانه وتعالى والنبي كأصدري الله مصمدين وصود الجنية صلاة هذا مشهد جو القرآن كوال صود الجي لكن الله وحي النبي محمد kaalay oo waa la qaaday oo waa loo soo dhiibay waxay ku tusaysaa salaada fadligeeda iyo cizigeeda qodobka saddexaad ma rabtaa caafimaad cudur ma ku hayaa xaaladda ma kuga adag tahay cudurrada la sheego daawo ma lahan lagu leeyahay iyo waxaasoo dhan cudurro fara badan ma ku hayaan simple way fududahay haddii aad cayilan tahay oo aad ka fikiraysid jiim inaad aadid haddii aad ka fikiraysid ilaahay kuma darnaadee cudur any kind of disease uu ku hayo wax kasto cudur walba oo ku hayo way fududahay soonka badso khamiistana soon isniintana soon wallahi baan ku dhaartay qofka markuu soomo waxa noqonaysaa wax walba free aad ka dareemaysaa caafimaadkaada caadi u noqonaya soonka badso qodobka saddexaad ma rabtaa in wajigaada uu nuuro dadku baryahan waxaad u malaysaa tawfiiqdii inay daba martayo waxaad maqlaysaa hebel baa isdhaqo xataa raggi baa hadda baryahan diyaanada iyo isdhaqa galay oo qayb ka noqday oo rabo qof walba inuu nuuru rabaa qof walba inuu qurxanaado rabaa quruxda meel qaldan bay dadka inta badan ka raadiyaan laakiin quruxda diinta ku jirta diinteena wax walba waa la wada geliya wax ka maqan mala waa complete constitution haddaba ma u baahan tahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku nuuriyo wajigaada quruxu noqdo oo aad noqotay qofka marka qofka uu ku arko uu dhowrinayo xageed ka timid haddaba salaatuleylka tuko salaatuleylka وحواي وحيابها قف كالنوريا صوته إلهي أياد مجد كعبود ذاتي ودنا هردو أذيعن إلهي وجهه هذا وحصارة يا
ilaahay kuma darnaadeen nuur. qodobka shanaad, last but not the least, qodobka shanaad maxay tahay? waxaan qof walbo bini aadan uu rabaa in la ixtiraamo, qof walbo bini aadan wuxuu rabaa in la xushmeeyo, qof walbo bini aadan wuxuu rabaa in la jeclaado. laakiin xaqiiqda waxay tahay hal jazaa'u lixsaan ila lixsaan. wax kasto wax bay leeyihiin. haddii intaba aad rabtid inta adiga lagaa helo, ma rabtaa in lagu ixtiraamo, dadka ixtiraam. ma rabtaa in dadka aysan ku xamarin oo ilaahay kuma darnaadee lagu badbaadiyo cizigaada iyo sharaftaada. ciziga sharafta dadka kale u badbaadi. caqliga ma keenayo qof baan xamanayaa, qof baan dhibayaa, dadka maqanaan iska cunayaa, anigana waxba laygama sheegayo. macnaha technically it does not exist. So for you to be safe from that, waxaad u baahan tahay inaad naftaada adigaas tirgaraysid. ilaah subxaana watacaala wuxuu leeyahay qof walbo qof problem u imaanaya ma jirto ilaa asaga isku keeno mooshi. haddaba haddaad rabtid in lagu ixtiraamo oo dadka hadalladooda iyo maxaa la jiray dhibkooda aysan kusoo gaarin, adiga dadka ha raasanin, ha dhibin. dadka ixtiraam, carabkaada iyo adinkaada ha laga magan helo, dadka kale way kaa magan helayaan. and mostly dadka ixtiraam, sharaf, wallahi baan ku dhaartay haddaad dadka ixtiraamtay oo sharaftid waa lagu sharfayaa. waxaan kusoo celinayaa iyadoo samariyaa si loo xasuusto. ma rabtaa in farji alla uu kuu furo, استغفرت بدي. مربتها إن الله سبحانه وتعالى عافمات كسيه صونك بدي. مربتها الله سبحانه وتعالى لبنا الدنيا مد آخره. صلاة وقت كده تكو مربتها إن وجهاد أقر حناده. صلاة الليل كتكو مربتها ضد كني باحترامان ضد كاحترام. الدباء صعبته وحدك عصنا إنها حدي أنا نقول صبتهاي. ويتعمرك كوجو رئيسي صوب وقطة جنال كان صوب وقطة أرح ميديا. سبسكرايب ده، شير ده، كومنت ده، لايك نوصي. هدي أي تاع أصحاب كم تاع أصحابتي هرنا لايك نوصي نونا شير جري غير بدون ما يدير الجنية إن شاء الله. وحندين سو جود بنتونا برنامجيو عن مركزي وأرجنو إن بلشدة الصومالي ده أي وحكة فائدة دونتو أما قفل بو أفكار صومالي برتي غير بدون يدير الجنية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.